galabta intii gelikii dambe xalay magaalada washington dhan waxaa ka hadlay madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh markii uu hadlay 3 qodob somaliland gaar buu la hadlay somaliland wuxuu yidhi marka koowaad somaliland waxaan u sheegaya inaanaan ogolaan doonina somaliland madax bannaan oo goonisu taagta bareed waad dhegeysan doontaa wuxuu yidhi xataa ilaa 19 ereygaa war hala israaciya mid laga maari mooye ma ogolin oo waa ka dagaal galaynaa wax kastoo soo dhaweynaya somaliland inay xor noqoto goonisu taagto waanu ka dagaalamaynaa aqbali mayno kala go xadkii ingiriiska iyo talyaaniguna inay qaybin maayaan wax ka badan baynu wadaagnaa wuxuu ku daray qodobka saddexaad waan ogolahay waxa leexii noloshooda ah ee ama la maal gelinayo ama baayac mushtara ama dawladdu siinayaan in aniga la isoo mariyo waanu saxiixayaa waan siinaya si ay isaga noolaadaan waa dhegeysan doontaa qodobka koowaad ereyga somaliland ogolaan maayo xorriyaddeeda madax bannaanideeda iyo la noqoshada gobonnimadeedii waxaan ka leeyahay horta la soo noqoshada somaliland gobonnimadeeda iyo xornimadeeda iyo qarannimadeeda iyo madax bannaanideeda ee ahaa xorriyaddii ay ka qaadatay ingiriiska 26 juun oo afrika oo dhan ay kala siman tahay dal kasta oo jira iyo midowgii ay la midowday somaliland soomaaliyadii talyaaniga juulaay 1960 labaduba wuxuu ahaa go-aan ay u madax bannaan yihiin iyo tala ay soo gooyeen somaliland shacabkoodu hadba madaxii joogtaan ay wakiil ka ahayd cidna labadaa go-aan ma khuseeyo oo wax kama bedeli karaan oo kuma dirqii karaan kamana qaban karaan kumana riixi karaan oo aan ahayn go-aanka somaliland sidaa darteed idinkuna hor fadhiyo oo iniga weynaya inayla joogtay bale qaranka somaliland magaalada burcaan caawa joogo oo intiina aad ka wada markhaati ahaydeen oo la isugu yimid wuxuu go-aansaday inuu ka baxo midowgu uu ku khasaaray markii ay burburtay waxaanu ku heshiinay uu qarannimada gaar isula taago iyadoo la isu dhanyahay taana xasan sheekh iyo xamarni jooga iyo mid islaanda jooga iyo mid meel kale jooga waxba laga weydiin maayo 30 sano qaran madax bannaan baynu ahayn hadalkaa aad tidhi cadaawadda uu kordhinaya caqli xumana way tahay 30 sano inuu kala maqnayne waxaa ka wanaagsanaa inaad tidhaahdo aanu ku leenahay laba dowladood oo jaar oo walaalo soomaaliya ma ahaana hadday ku deeqayso weeye adiga odhanaysa qodobka uu yidhi xadadkii talyaaniga iyo ingiriisku sameeyaan ina kala sooci maayaan oo ina kala goyn maayo wax weyn naga dhexeeya waxaan ka leenahay ama aynu ka leenahay horta xadkii isticmaalku waa kay ku dhisan tahay afrika 54 dowladood somaliland waa 55 nin diida iyo natiijiyaba waayo waxay ku fadhidaa xadkii isticmaalka xasan sheekh iyo madaxweynayaasha xamar waxay ka mid yihiin oo ay fadhiistaan shirka midowga afrika xeerkeedu wuxuu ku dhisan yahay axdigeedu inay afrika ku dhisnaato xuduudihii isticmaalkii waa laba wajiilanimo iyo munaafaqnimo dadka aad u sheegayso inaad dhex fadhiisato ood ku dhaqanto xeerka midowga afrika ee leh afrika waxay ku dhaqmaysaa xeerarkii xadadkii isticmaalka ka tegey isla markaana aad leedahay soomaaliya somaliland ku kala raaci maayaan xadkii talyaaniga ingiriiska oo maxaa ka reebaya haddaad diidan tahay axdiga midowga afrika dee iskaga bax midowga afrika oo adigu mid gaar samayso wax tiri anugu ma doonayo xuduudihiisa afrikaanka laakiin somaliland ma oran kartid kuma qaybsan karo waa sharci afrika oo dhan buu yaallaa midowga afrika ka mid yahay ku weydiin mayno xorriyadda iyadu waxay ku simataa 54 dowladood afrikayiin ka 55 baanu nahay nin diidinaan sitinida qodobka saddexaad wuxuu yidhi waxaan ogolahay inay iska ceeshaan wixii horumarin la siiyo inay haddii dhaqaalaha u baahan yihiin waanu saxeexayaa hadday horumar doonayaan
waanu saxiixaya ma doonayna inaan culays ku saarno muruqayaga siyaasadeed ee dowladnimo ta hore waxaan diyaar uma nihin inaan muruqayga ku isticmaalo siyaasadda diblomaasiyadda xorriyadeed waxaan ka leeyahay haddaad muruq leedahay siyaasadeed xor tahay maxay ku ilaaliyaan nimanka afrikaanka ah ee afrika soo urursay ee lagu siiyo waxaan la yaabanahay inaad faanto tiraahdo Soomaaliland xornimada muruqayga ku isticmaali maayo adoo Burundi iyo Uganda ku ilaaliyaan cashuurtaadana ay shabaab ka qaada adiga daaraha iyo macaamiisha taa waanu ogolaanayaa wixii ay ku noolaanayaan iyo iska ceesheen waxaan ka leeyahay horta Soomaalidu hore uma mahmaday waxay tiri Soomaalidu waxay tiraahdaa gob xurmaad deeqda guna gasiin iyo goos qabatin baa deeqa waxay la tahay xasan sheekh Soomaaliland ma yaqaan markuu leeyahay iska noolaadan labada ere wuxuu quurayaa kadama Soomaaliland Soomaalidu way taqaanaa anigu adiga shakhsiyan ku sheegaya Soomaaliland soo baro Soomaaliland waa gob xurmaad deeqda ee calooshu ma deeqda waxay galayaan iyo goosay gudub haddii xornimo iyo ixtiraam iyo qarannimo laga waayana nin wali wuxuu yahay in buu noqon waxaan ku soo koobayaa habeenkii 26 Juun markii Hargeysa xafladii la joogay arrintaa waan ka hadlay wuuna soo hambaliyay waxa loo dareemayay inuu si maaragtay nin af wanaagsan waa kan aad arko macaaneeye saaxiibo badan oo ku leeyahay Soomaaliland qaar baa mashtarkiisa ka socda iskuul leeyahay in badan buu ku noolaa walaalayaal af macaan bareysay anigu habeenka waxaan idhi waar libaaxa ka qaylaya ka soociya iyo ka amsan badan waxa soo baxday xasan sheekh wuxuu la aamusaa inuu shalay ka sheegay Farjiria isagoo la hadlaya qurba joogii Soomaaliya waxaan ku talinayaa laba dawladood oo 30 sano kala madax banaan xoreen اعتراف إلهي ونو اعتراف أنا واسع اعتراف سنة بني آدم يقولوا وحنا نقبلنا يربى صدوا سنة نكلم مغنى لبي يصدوا سنة صدوا سنة شب إيه عراد إيه إلا الدنيا بتشوفه صدوا سنة نكلم حرة هديك دقيق ويدي أنا وقرر ما يوحى كدقيق يك احترامية لكن الشعب كالصومالي وحلاه أنا وحنا عندنا الصومال لندهاي ولا ليال كلا قوسنا ينقوم ما أنو laba dawladood walaalaynu nahay hadaynu wax tarayno hadaynu iska asharayno laakiin waxa xasan ka soo yeeray malaha shacbiga Soomaaliya lama socdaan isleeyahay wixii wax garaday intaas waa iga war iyo wixii aan ka oran lahaa oo isleeyahay burco oo lagu aasay Soomaaliland iyo intii odayaasha u badnaa wixii ka dooraana way joogaan fagara ka weyn ka oran lahaa ma jiro aad iyo aad baa mahadsantihiin wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh